Somaliland منطقة صدن يدور سنة كوفان يسد ديمقراطية مسنا وموقالك حبسية الدون كاللو عقاب الضدكا شان مدحوينه وطلده وكلا دنبيه هاد وحا هوغانكا وهايا كورنيل بيحي وحكي يقلب سنايا سومرا دينا عقيدي سعود كالديمقراطية دا اي حرية دا هذالكا نظام كونو رشد عصباديد كسوكو Somaliland waxay dabaalanaysaa badweynta cadaalad darrada iyo ku tagrifalka awoodaha dawladnimada isbuucii la soo dhaafay waxa xabsiyada loo taxaabay ku dhawaad 30 qof oo isugu jira saxafiyiin iyo shakhsiyaad kale oo aragtidooda cabiray 17 suxufi ayaa la qabtay iyagoo tabinaya dhacdadii gadoodka maxaabiista ee jeelka weyn ee Hargeysa waxaana xidhan 15 ka mid ah saxafiyiintaasi oo maanta loo jaray 5 maalin oo xabsi ku hayna wariye gabilay ka waramay hooyadii qaldan lagu shubay ayaa la dhaadhiciyay dhalinyaro YouTuber ah oo filim metelayay ayaa la taxaabay halabu reer Burca oo aragtidiisa Facebook ku qoray ayaa isna la xidhay wadaad ka hadlay xariga coldoon ayaa la soo qabtay isagoo taraawiixda tujinaya masjid Hargeysa ku yaal gabadh ka cabatay booliiska ayaa iyana gudaha la dhigay muwaadin sheegay dadka soo jeeda koonfurta Soomaaliya oo laascaanood Somaliland ku baadayso ayaa gurigiisa loo daatay saqbar habeenimo gabadh reer Buuhoodle ah oo Garowe ka timi ayaa Hargeysa lagu qabtay wariyeyaasha waxa loo haystaa dhacdooyin ay ka warameen halka muwaadiniinta kalena ay ku eedeysan yihiin aragtiyo shakhsi ah oo ay dhiibteen madaxweynaha maalmaha kooban ka hareen xukunkiisa iyo xukuumadda kulmiye oo hadda cadceed casar joogta ka soo caburinta iyo xurriyad la'aanta hadalka waxa ku hoos lamaan falan lamida kuwii kacaanka waxaana kooxo hubaysan suuqyada Hargeysa ka afduubayaan xataa dadka xanta madaxweyne biixi dhawaanayay ahayd markii laba saxafi oo midkood hadda xidhan yahay weerar rasaas ku bilaabmay ay u adeegsadeen dhalinyaro ku hayba korneylka kuwaas oo ka cadhaysan in la sheego koldaloolooyinkiisa biixi markaad barbar dhigto madaxweynihii talada Somaliland ku wareejiyay Axmed Silaayo giraanta waqtigana dib u celiso waxaad fahmaysaa in Somaliland uu afka u saaray dariiqii ay ku xijaabteen kaligood arrimayaasha Carabtu xukuumadii tan ka horeysay inkastoo tacaadiye u geysatay saxafiyiinta haddana waxay ahayd nidaam u diyaarsan inaad waajahdo garsoorka mana jirin kooxo aan la garanayn waxa ay yihiin oo suuqa ka afduuban jiray muwaadiniinta sidoo kale aragtiyaha shakhsiga ahi waxay lahaayeen xuduud oo qaarkood dadka looma qabsan jirin xilligii madaxweyne Silaayo waxa dhacday heer xisbiyadu gaadheen in la weeraro qoyska madaxweynaha siiba marwadiisii Aamina Waris in wax laga sheego caafimaadkiisa wasiirada qaarkood oo xatooyo lagu eedeeyo intaasiba maanta ma dhicin korneylka xukunkiisuna ma wajihin mucaarad la mid ah tii xukuumadii ka horeysay hase yeeshee biixi ma aqbali karo in xataa la dhaliilo taladiisa waxaana la isku abaalmarinayaa xabsi Somaliland doorkii mucaaradka ayaa maqan xilli 7 bilood oo quri u hadhay xukuumadda misana Cabdiraxmaan iyo Faysal waxay u muuqdaan laba milxiis oo nacnacnabaad ku miisaya masraxyada siyaasadda hadda oo kale Axmed Silaayo markii uu riyaale talada ka rogay wuxuu taliskiisa ku shidayay malmal siyaasadeed oo miliqsi u diiday shacbiga Somaliland waxay ka dhursugayaan halka dharaaruhu dhigaan nidaamka biixi een cidna waxba u hambayn